marka hore horu dhacyaan samaynayaa inta aanan hoos u gelin sida fal ahaan loola imanayo. masalada koobaad in raba inaan baraarujiyo waa inaan su-aal ka jawaabo. salaada horey baaba muuqaalkeeda loo duubay, maxaa loogu soo celinayaa? su-aasha jawaabteeda waxaan dhihi karaa laba sababood waa asaas u ah. sababka koobaad, duubitaanka horeen duubay waxay ahayd ficilka iyo falka keliya, qowlka iyo waxa la aqrinaya ay lama socon. meeshan ka hor baa codsiyo badan igu soo noqnoqdeen in ficilkii iyo qowlkii la iswaafajiyo, qowlkii iyo ficilkii in la iswaafajiyo oo marka la rukuucayo sida loo rukuucaya haddii la sheegay wixii la aqriyi lahaa in lagu daro, haddii sujuudii la tilmaamay wixii la aqriyayana in lagu daro ilaa aakhirihi. haddiiba munaasabadan ay noqotay in laga hadlo, taas inaan uga faa'iidaystoon isku daraa waa doonayaa. sababta labaadi waxaa soo noqnoqotay mararkan dambe tii hore la duubay waxbaa tirtirmay, waxbaa baaba'ay, sawirku aada looma arko, ma wada muuqato iyo erayo lamida baa soo noqnoqday. walow anu aanan fiirin oonan daawan, laakiin erayadaas oo soo noqnoqday baa waxaan isleeyahay wakti baa ka soo wareegay, bal mar kale hala yar cusboonaysiiyo. su-aasha haddaan ka jawaabo kadib, salaada in laga hadlo oo marka axkaamteeda la sheego, marna sida loo sameynaya dadka la baro, laba sababoodba muhiim way u tahay. mid weeye waa hadyigii iyo hanuunkii nabigeena sala allahu alayh waalihi wasalam. salaada saxaabada axkaamteeda uu tiriyana waa u baray, oo waxaa ugu dheer xadiidka la yidhaha almusiyi fii salaatihi, ninkii salaada ka qaldantay ee nabiga calayh salaatu wasalaam uu salaada uga bilaabay haddaad istaagto, soo weysaysato, qiblada qaabisho, fakabir ilaa aakhirkeedii uu sheegay. xadiidka almusiyi fii salaatihi haddaad akhridaan waa axkaamtii salaada oo qowl iyo erey lagu tirinayo wey. saas darteed mar in laga sheekeeyo axkaamta la sharxaay nabigeennaa sameeyey sala allahu alayh waalihi wasalam. marna dadka ficil ahaan in loo tuso isagaa sameeyey, oo dadka qaarkii salaada intay weydiiyeen nabiga calayhi salaatu wasalaam yaa wuxuu ku yidhi aqim macanaa haadayn ilyowmeyn, laba beri nala joog. laba maalmood buu midba shantii salaadood markuu la tukado waktiga awalkiisa iyo aakhirkiisa kale ah wuxuu yihi salaadu waa sida aada u aragtay wey. haddana waa ka dardaarmay oo ma dhihin sida aan idiin sheegay u tukadee, wuxuu yidhi salluu kamaa ra'aytumuunii usalli, saad anigay aragteen anoo u tukanaya u tukada. saan u rukuuci jiray u rukuuca, saan u sujuudi jiray u sujuuda. saas darteed dadku waxay u baahan yihiin markii la ogaada hadyigii nebiga inay tahay, haddana wax kasta oo marka laga sheekeeyo in la sameeyo u baahan, samayntiina in lagu baraa fiican. waxbaa lagaaga sheekeeyey, waxaa laga yaabaa adigu inaad istiraada samee, laakiin xubnahaagu siday noqonayaan adigu waad iska sii jeedaa, iskuma soo jeedid. waad rukuucday, dhabarkaaga ma aragti. qof kuu fiiriya oo ku yidhahda maya halkaa ka toosi, halkaa saa ka duw, halkaa ka leexi, markay isku hagaagta ku yidhahda haye sidaa weeye halkaa ka wad. lugahaagii saatiri markaad sujuudsanayd ee ma sujuudi mise lugahaad fiirin, cid kuu fiirisaad u baahan tahay. qofku markii wixii la baraya marka wax kastoo camali u baahan, nabigeennu marar badan buu salaada keliyaba meehe sala allahu alayh waalihi wasalam dadka camal ahaan u tusi jira oo dhihi jiray fiirsada. xajkaa ka mid a. xajku waa camal badan, axkaam ahaan buu nabigu u sharxay, qur-aankuna u sharxay. laakiin markii xajka aad tagto, haddaad keligaa tahay, mararka qaarkood meelaad ka bilowdaad garan waayeysaa. adoo abwaabulxaj axaadiidta soo xifdiyey oo kutub soo qaato oo qaar mukhtasaraada wata, ba haddaan lagula soconin mawjadu markaad aragto inta aad wareerto baadan kale u raaci. marka wuxuu yihi khuduu canii manaasikakum,
aniga iga fiirsadoo waxaan samaynaya intaad samaysaan ani iga qaata aragti iyo ku dayasho igaga barta culimadu waxay sheegaan in culimadii muslimiinta kamid oo marba nin lagu sheegay ibn cabdilbar miya mise waa kayrkii baa kitaab qiimo badan xajka ka alifay aad bay muslimiintu ugu bogeen kitaabku xaj ka qoray laakiin weli muunan iman isagoo weli iman buu kitaabka qoray markuu yimid buu kacbadii oo cidlaa yimid de meesha markaad timaado dhankaad ka wareegaya saad u bilaabi dadaad fiirsatay ku fiican tahay meeshii intii kacbada bidix la mariyo saa loo wareegi lahaa buu dhinaca kale wareegay bay yidhahdaan gabar meesha maraysa waxay tihi sheekh waa khalad dhinaca kale ugu wareeg markaasuu inaa naga tag tay fiirisay tihi sheekh hebel kitaabkiisa haddaad akhri lahayd waa isagii ogow saa maadan yeesheen tu istaagay uu nahadha waa anigii kaad sheegaysa laftiisaan ahay marka wixii markay tusmo u baahan tahay hadda magaalada Johannesburg qof aan iman haddii looga sheekeeyo oo la yiraahdo saasay u egtay haddaad tagtay jidka saa u qaado kaasaa uga jiirayo jiirada galo halkaa waxaa ku samee markuu soo istaago horta jiiradii la sheegay midig bay jirtaa mise bixi bay jirtaa wuu wareeri laakiin qof yaqaana markuu kula socdo halkaan marayna maalinka labaad qofka cusubada hogaamin wax kastoo camali u baahan baa mararka badan in lagu tusaad u baahan tahay sadarteed salaadu maadaama camaasha cibaadaadka waxa ugu muhiimsan ay tahay maalintiina 5 jeer faradkeedu soo noqnoqonayo faradkiina la rabo saad u sameynaysa xubin waliba goobteeda ay joogto sharciga inay waafaqdo marun in laga saxo waad u baahan tahay waana tabiici qofku inuu wax qalbadan laaximiyo qaldo wixii in la baro laga saxa u baahnaa haddaan laga sixin innagana waxaa ugu badan salaada hidiya dhaqan baan u tukanaa mararka qaarkood diin ahaan waad rumaysantahay laakiin salaadaadu waa hidiya dhaqan carruurta yar markaynu nahay soo tukada layna dhaha saan u tukanna guriga iyo waalid laynagama saxo weysana laynagama saxo halkaasuu maraa balaq buu biyaha ilmaha yar ka siiya salaadu galaa dadku iskala tukadaa sidii buu ku weynaadaa waxaa laga yaabaa inuu isu haysto salaada taniya yaridii baan soo tukan jiray buu leeyahay taniya yaridii bay laaxin ka ahayd taniya yaridii bay weysadu ka qaldanayd waxaa la yidhahdaa saxaabada 2 nin oo yar oo kamid ah baa nin oday oo waayeelay arkeen nabiga kadib calayhi salaatu wasalaam oo si qalad u weysaysanaya markaasay isweydiinay dheheen duqan san wuxuu u sheegnaa dee duqan waa waayeel weyn oo ugu xanaaqaya shan yeelaa mid bay anaa sirta haya haye ina kan buu yiri waxay dhaheen adeer laba dhalinyaro yar nahay weysadaan isku haysanaa noo garqaad kaanagi weysa saxsan wuxuu yiri waaye kana weysaystay kana sidii oo kale u weysaystay wuxuu yiri fariinta waan fahmay idinka ma aanay ugu socotaay waxa ka qalday waaniga isna waa gartay labada nin waxba iskuma hayaan weysadii in fariintu soo ku socoto la bari rabo weysada dinka fariintii waa gaadhay saas darteed weysada caawa kama gaadho marka hore aan ku daraan rabay halka lafta intaan baaf weyn soo dhigo kolba ninaan soo kaciyaan dhow bal weysaysaad u weysaysataan ku aragne midna waan ka cudur daaran qaybta tatbiiqo ninkan u yeero nin walow kaamera aad geli doontaa dunida dhan baa lagaa daawan sokeeyo shisheeyo markaan kuu yeero waa jeclahay inaad iga aqbasho adoo ku talagelaya oo waxaan kugu sheegaya hadhow inaaday dhihin wadaadku waa istirayo meel warti iyo dhoobo iyo ceeb taariikhda ii gashay buu lugta ii geliyey iimana sheegin yaadan dhihin qodobka inta haddaan kaga baxo qodobka labaad waxaynu leenahay salaadu waa 2 qaybood inta muuqata ee la arkeen caawa ka hadlayno waa wax la aqriyo oo afkaaga inaad ka saxdo u baahan iyo fal la sameeyo oo xubnahaaga in la saxo u baahan labadaba sixitaan bay u baahan yihiin qaybta kale in aqwaasha iyo afcaashan aan ahayn caawa ka hadli mayno laakiin waan tilmaami doonaa haddii la yiraahdo oo waa qaybta quluubta la xiriirta haddaba aqwaasha iyo afcaashaasi allahu akbarna waa ka bilowdaan assalaamu calaykumna way ku dhammaadaan wixii allahu akbarta ka horeeya inama khuseeyo adaa musalli dheh ama nawaytu dheh intaa salaada ka mid maaha salaada markaad allahu akbar dhahdo unbay bilaabataa
in minhaajka akhri jiray Allah u naxariistay u dhintay Sheekh Ismaan la dhihi jiray baaxirtiisii kaynu ka dhaadhiciyay isku dayay u salli salaada ka mid maaha oo salaadu Allahu akbar bay ka bilaabataa uu ku celceliyay wajigoodiibu wuxuu ka arkay qaarkood inay waxoogay jirka isyar gelinayaan oo diidayay waxaan filayaa 85 miyay ahayd 86 horaanteed ay ahayd isna minhaaj buu akhriyay wuxuu wariyaada heedahay waxaan idin sheegay si fiican in maqla salaadu waxay ku asaxdaa buu usalli fard adh-dhuhri 4 rak'aat adaan lillahi ta'ala muqtadiyan قال دلay baatay Allahu akbar way ku asaxay tabana Allahu akbar inta koorayay salaadku ma jirin ama caytan ama cadaab la imo ama hadal fiican ku hadal ama hadal xun ku hadal Allah قال دلay baatay wali salaadii kuma jirtid buuga jeedaa waa dagaalantay Allahu akbar baa ka dibtiri salaadaadi way xiranta inta hore sheekiyaha saaway ahayd ribood iyo xog iyo warbixin bay ahayd ama ku saxnaata ama ka qaldanaata baabkayga maaha waxaan rabaa inaan iraado salaada Allahu akbar ka bilaabata assalaamu calaykum na ku dhamaata oo waxa falka la sameeyay xubnuhu sameeyaan sida loo sameeyo iyo waxa la aqriyo sida loo aqriyo baynu ka hadlaynaa caaw masalada saddexaad salaada aan ka sheekeynayno culimada muslimiinta iyo madaahibtu waxbay ku kala duwan yihiin markay wax ku kala duwan yihiin madhabka keligii ah bay culimadiisu masaa'il isku hayaan maanta inaan madaahib oo dhan waxay qabtay iyo shaaficiya saa u tukata iyo xanafiya saa u tukata inaan idin iraahdo caawa uma fadhiyo maadaama in la soo koobuun ay tahay sida aan isleeyahay sunnada ugu dhowdahay guud ahaan gaar ahaan sida Sheekh Muhammad Naasir rahimahullahu ta'ala kitaabkiisa sifatu salaad uu ku sheegay baan tixraaci doona meeshii waxyaabo badan leh qaybaan ka soo qaadan meelaha qaarkoodna waxbaan kaga baraarujin doonaa insha Allah ta'ala marka aan marayo inta kadib ahkaamta salaadu intaynan salaada gelin waxyaabaha hadaynan samayn aan salaadu inaga asaxaynin baa jirta wallahu akbarti aan waxba ka jirin boqol jeer hadaad ku celis Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ta ku haysa maanta isqaban mayso sidii salaada ciid yimid umaad noqon wali ciid ma tukan baa la yiri Allahu akbar tii lagu celceliyay marka to gadaal istaagay ajab xagee iska qaban laada salaadii gunta bilaaday uu haystaa marka salaadaadu isqaban mayso haddaadan waxyaabo dhowr ah marka hore ilaalin hadday adoo salaadii ku dhex jira dhowrkii wax u dhinmaana halkaas ay salaadaadii ku jabi oo ku buri هذا التحيات كودن بيدميي ويكليه السلام عليكم تكون لابن تهي هدي وحيابهن آد سميس أما أي دعان صلاة دادي ألف كسوة باللوي صلاة دادي ألف كسوة باللوي وحبك ما تشيرو السلام عليكم كدب هذا دعان وصلاة ويدا مات وحيابها علماء يقانان شروط صحة الصلاة شروط الصلاة ديني الصحة كحران تهي oo Allahu akbartu ay guntanto baan dul marisi kooban shartiga labaad waxaan leenahay horta salaada waqtigeedii faralka ahayd waa inuu soo galo illa mastusniya asalku waa salaada waqtigeedii inuu soo galo way inna salata kanat ala almu'minina kitaban wa wajib mawqutan xilli salaada duur xilliga doonta iska tukan kartid waa in waqtigeedii soo galaa صدرت صلاة دادي وحي كحرم تهي إن الله أكبرت كأصحده إن وقت جدي سوقله كليه وحال لقى سوريبيا صلاة الله جمعنا أيه إما أصالة وإما حاجة لا ولا صار الله جمعية قفك مسافر كاه ظهري عصر إنه إسرائيل لو أقول هي وقت عصر ظهرك صدرت العصر كي وقت جدي واتكسرتي وقت دور بaa tukanaysaa ishaara inta soo rarto soo guuriso waqtiga maghribka tukan kartaa ogow cishiina waqtigiisii oo galin baa tukatay asarkiina waqtigiisii oo galin baa tukatay taa waa la ogol yahay musaafirkii inuu jamciya loo ogol yahay waa ereygan aan niri ilaa mastuthniya wal jamcu bayna salatayn asalatan asal ahaan
qofka musaafirkaa iska leh lixaajatinna baahi iyo duruuf jirtana qofka muqiimkeenagi sida roobka oo kaleeto roob baa yimid habeen dhaweyta maqrib iyo cisho halkan waa israacinay soo maaha waa xaajatan mararka qaarkood wixii marmar ahna hawl adag baa maanta ku haysata sida isbitaal baad tegaysaa saf baad ku jirtaa kolba meel baa laguu dirayaa maanta salaadii casar duhurka kadib baad ballan leedahay casarka waxaad ka baqaysaa inaad haleeli weydo waxaa lamid a isbitaalka keliya ma aha xafiista iyaad ballan la leedahay xafiiskiina saf iyo dabagal weeye weyse iyo salaad baan aaday haddaad tirahdana inaad haleeli weydaad salaada soo socota ka baqaysaa laba salaadood waa isu geyn kartaa waa wixii marmara intaa keliya ma aha ama ganacsatadii maanta alaab baad degaysa tuugtuna waa bililiqa haddaad waxoogay ka cabsi ka tagto wixii joogta maaha dagow maalin kasta maaha marmar weeye inaad salaadii haleeli weydaad ka baqaysaa lixaajadii maطarka iyo takhtarka kama duwana waa xadiidka ibn cabaas ee muslim warinayay wey nabigu duhur iyo casar buu isagoo madiine iska joogo oon roob jirin oon safar laahayn oon cabsi jirin buu duhur iyo casar israaciyey markaasu haddana maqrib iyo cisho israaciyey waxaa la yidhi muxuu ga dan lahaa nabigu araada an laa yuxarija ummatahu ummaddu dhib badan inuusan qabsanin waayahay ibn cabaas markuu sheegay abu hurayra loo tago waay abu hurayra ibn cabaas warkaasuu sheegaya ka waran waa runtii bu nabigu laakiin mar buu sameeyey wixii marmar ah waxaan leenahay intaasi waxyaabaha asal ahaan aan ka soo reebayno labadaa jinsi soo gala abwaabteeda aljamcu bayna asalaatayni ciddii loo ogolaaday ma ahane salaada waktigeeda inaad ku tukato waktigeeda soo gala wey salaadaan qaybtaas ahayn waktigeediina aan soo gelin haddaad iska istaagta haddaad cisho allahu akbar tirahda waxba kama jiro waraa salaada subaxniyo hurdaa ila tegiye hadda cishaha markaan tukado salaada subaxna aan raacino aad baan u daalannahay ama safar baan soo haynoo 9 saac habeennimaan soo gallay subaxii saacad baa ka laaban waraa ma soo kici karnay hadda salaadeenna aan hormarsanna maya lama ogola ama salaadahan jamacaba loogu talagelin weeye sida subax oo kaleeto salaad lama raacin karo ama qofka aan loo ruqsaynin baa tahay masalada kuwaad salaad darteed waxaan rabaa inaan idhaahdo waktigu waa inuu soo galaa masalada labaad waa inaad طahaaradii sharciga ahayd leedahay طahaarada sharciga waxaynu uga jeednaa laba weeye طahaaraةu khabaثin iyo طahaaraةu xadaثin طahaaraةu khabaثin nijaasooyinkaa la yidhahdaa dharkaagu waa inuu daahir yahay jirkaagu waa inuu daahir ka yahay nijaasaadka meeshaad ku tukanaysana waa inay daahir ka tahay najaasaadka haddii jirkaaga najaaso ku taallo ama dharkaaga najaaso ku taallo ama meeshaad ku tukanaysa ay nijaaso tahay lama ogola salaadaada allahu akbarta waxba kama jiro waxaan ka hadlayno o dhan waa cinda alqudrati qofka awoodo wey qofkaan awoodinba oo xabsi ku dhex xiran meel kaadii unu qulqulayso dee halkaa ku dhex xiran yahay buu isaga tukan salaadha laga taga lama dhihin laakiin qof awoodo wey wa hiyaabaka fatahir baa ka mida masaajidkii la dhaqay baa ka mida musqulaha in lagu tukada nabigu diiday baa ka mida saas darteed waxaan leenahay shardiga labaad طahaaraةu khabaثin waa inaad tahay sidoo kale طahaaraةu xadaثin waa inaad tahay waa inaad weyse qabto qabaysna aan lagugu lahayn adoo qabays waajib kugu yahay salaad baan tukan maya nin jinaabo qaba gabadh caado qabta gabadh dhiiggii umusha ama dhiig furankii leh lama ogola qof aan weyse qabinna allahu akbar hadduu yidhahda ka waran waxba kama jira allahu akbartaada laa yaqbal اllahu salaaةa axadi إida axdaثa xataa yatawada hadday weyse kaa jabto ama qabays lagugu leeyahay inaad طahaaro qaadato salaadba lagaa aqbali maayo ka warran haddaad sanad dhan weyse qaadanayso odan weysadaadiba sharcan saxnayn baabkeedaa looga hadliye laakiin su-aashaa jawaabteedu nagacsoo qolyo tukanayuu arkay oo intay soo weysaystaan halkaa anqawa lugta qaybta dambe ay caddahay markaasuu yihi waylun lilacqaabi min annaari kuwaa cerbaha cadcad lugahooda naar bay geli doonaan salaadday tukanayaan ogow salaadda laga aqbali maayo saas darteed طahaarada waa inaad iska soo saxdaa saas darteed waxaan leeyahay طahaarada labadeedii noocba tii xadadka ahayd ee weysada iyo qabayska ahayd iyo tii khabadka ahayd ee najaasada ahayd labadaba inaad iska soo طaahirisa wey
وشرط جل وطهارة شرط صد حد وحي نولانا هاي عورة هنا على أسطرتوي أما الرجع هو أما الدمر هو هذي عورة عظيم موقته أنا أسطوري كرتو وحلو أسطورة هاي ساتو الله أكبر هذا وحبك ما تشيله صلاة هذا عورة هذي بناناتنا وحبك ما تشيله وكك صلاة هذه سيدا دور ركوع سنة ما تحيات كتير هذي ويسدي كاتشبتنا ككعوي صلاة هذه ويسدي وكاتشبتي ذاتك معذورين تهانا متهيدي أصحاب الحدث الدائم لديه شري أصحاب الحدث الدائم وعدتك أما النافطة أما كاذيذو أما ديقو سنكبه يستاقين وي قفك ويسيسان وطهارة قاضا انتو تكن ينا وعفس ويوحك لما أود لكن هدي هذا عورة هذه أسطورين أما الرقا هو أما دمر هو رقو ولا بدل لو إني قرسون يهين حدونته أما بوفتنا قرسونته بوف مو تقنا بوف نوالي هذا حدونته وين قرصونته لو يهنا وين قرصويهين انت ودا حيسنا وين قرصونته حديثك جرد ان الفخذ عوره وابو عوره وي هذا الشيخ محمد هو واكيه سبح دويته هبين هره كهدليان ما هبين هره بان ملينيا ورجين شارك شاتيدي فنادها غابغابن قبا اما سروالدان دبدو موقتا قبا ee markaad rukuucdaan iyo sujuudaan dabada muuqata salaadiina waxba kama jiro soddon salaadaan ku wada waxba kama jira salaadaada waa kuwan maryaha gaagaaban ee looyuhu muuqdaan qabee markuu rukuuco lowga xagashu muuqanayso ee sarwaaladan isboortiga gaagaaban ee banooniga lagu dheeray kor iskoreeyo lowgu muuqanaya qabana salaadooda waxba kama jiro banooni baan ciyaaraynaa garoonkaan ku tukanaynaa way fiicantahay inaad ku tukataan laakiin sarwaalka isboortiga hadduu aad u dheer yahay hadhow orodkuu ku qaban saa darteed midun lowga ku taagan yarna ballaaran oo markaad sujuudiyo halkaa dambe lowga koraysa xagasha la arkaya ku tukatay salaadaada waxba kama jiro dadkanu waa cadho dhownaho farta ina gaadhee waa ficnaan lahayd adoo tukan oo dhawar ku muuqdo qofka agtaada inuu farta kadkaa siiyo markaad ka hor rukuucdo si aad ogaato salaad inaadan ku jirin ood u baxdo لكن هذه أسقط عوامل صومالي بدحوا كدخري بدحوا كودفر وعرضها كسر الرئيس لكن منك عورة يسوف فيدنته فيدنان ثابت هو السجن صلاة سحبة كما تشر رجع عورة وظنه ولو يهو وإن يقرسويهن حقا هراء حقا دنبه كوا دنبه حدون ترى وإن يقرسون طاي حقا هراء إلى نور كين تكو آدن نواه هذا الويري baan hadda sarwaaladan dabadu muuqata ku xasuustaa ninka magacaabi maayo way dhahaygu waxay hayaan rag yaqaan qaraabana ay yihiin laakiin nin baa reer meel degan buu faaleeyayo wuxuu yiri gar hebel baabiyeeyo odayaal waayeel baa lagu yaqiinay isagoo 14 jir uu garweeyay yeeshay buu tabal macruuro ma qaan gaarin baa leeyahay 14 jir wey guntina hebel baabiyay buu yiri saamacawsu dhulka way jiitamaysaa dabadiisana way muuqataa buu dabadiisana waa muuqataa dhulkana way jiitamaysaa hadda sarwaal luga waaweyno jeebkiisa uu barida hoosteeda marayo dabaduna muuqatay isna dhulka jiitamaya soo guntigii waagaa ninkaa kaca ka dayrinaya uun maaha war waa sidee baasha kuwii muuqaalkaa midin deeqilay waar naga daayay bigtaada calaa kulli xaal waxaan rabaa inaan idin iraahdo عورة هوeenkuna ay asturayaan markay salaada ku jirto waa wax kasta oo wajiga iyo labada cumacumood aan ahayn gabadhu wajiga way banayn markay salaada tukanayso labada cumacumood ama kafaynkana way banayn wixii inta aan ahayn jirkeeda waa inay wala asturtaa dee suuqaan wareegayaayo sarwaalkayga jiiriska aan qabaa boorsadana goonna yar baa igu jirta waad aragteen sooma markii salaada la gaaro meel baan ku leexano bahal yaroo meel laba gaarin baan isku nabi salaadna waan tukan way fiican tahay niyad salaad inaad u hayso u soo qaadato haddaad mar kale iska qaawan tahay waa dembi
salaadiina waa xukum kale inaad ilaalisana way fiican tahay laakiin de salaadii lafteeda si fiican hadaad u tukani soo dhib maaha saa darteed cawrada waa in la asturaa hadday cawradaadu qaawan tahay salaadaadii allahu akbarta waxba kama jiro masalada shanaad ama afraad salaadda markaad tukanayso taagni baa lagu tukadaa inaad ama awood darri ama cabsi ay kuu diidda maahane labadaas baan ka soo reebaynaa iyagana asalka salaada waa quumuu lilaahi qaanitiin u istaaga nabiguna wuxuu ku yidhi kacad ninkii la yidhaha cimraan ibnu xusein salli qaa'iman adoo taagan tuko laba qof baa loo ogol yahay ama laba sinfi oo dadka ah baa loo ogol yahay inay waxaan fadhi taagni ay ku tukadaan qofka mariidka ah ee xanuunsan in istaagiba karin xanuunkaasi ama xanuun wakti kooban haya ha noqdo ama xanuun daa'ima ha noqdo fadhiga wuu ku tukan karaa laakiin nukadka daraa'ifta ah waxaa ka mid ahaa nin aan isku meeli iyo reero ahayn baa lug buu la'aa salaadda way u banaanayd oo fadhi buu ku tukanayay laakiin de ul buu ku boodayayoo markuu soconayo ul buu ku boodaa markuu gaadiidkiisa raranayana intuu ku tiirsaduu caymiyaa nin baa la kaftamo yidhi hebelow ilaahay uu ku arkaa uli salaaddii sidaa fadhi ku tukanayso dameerkaagana taagni ku raranayso sidaa dameerkaagana taagni ku raranayso salaaddiisiina fadhi ku tukanayso laakiin ogaada waayahan dambe model bay noqotay rag shalay ordayey oo taagni ku tukanaya waxaad markay kursi ku fadhiya war hebel waa sidee rag baa weydiinay marka war hebel nse wuxuu jira hebel buu ku tukanayaa ani maxaa dhacay buu leey hebelba waa ku tukanayaa kursiga aniga maxay diiday qofka fadhi loo ogol yahay ama kursi ama dhul ha noqotee waa qofka aan taagnaan karin wey qofkii limaradin daa'ima ama taari ah oo markaa xaalad wakti go-aan haysaa taagnaan waaya ama salaadoo dhan ama qayb ka mida dhexda taagnaan waaya wuu fadhiisan karaa laakiin adoo taagnaan kara oon cudurku haynin ma fadhiisan kartaa haa mar kalaad fadhiisan kartaa haddayna taagnidu suuragal ku ahayn ood ka cabsanayso in laga cabsado sabab badan baa keena waxaa keenaya in xaalad dagaal lagu jiro farijaalan aw rukbaanan fain khiftum aayadda waxaa ka dambeeyey waquumu lilahi qaanitiin fain khiftum farijaalan aw rukbaanan nin gaadiid saaran oo fardo saaran aayaddu ay ka hadlaysiiyo geel ma dul taagnaadaa maya waa lagu fadhiistaa waxaa lamida diyaarad baad ku tukanaysaa tareen baad ku tukanaysaa bas baad ku tukanaysaa markab iyo doon baad ku tukanaysaa ma taagnaan kartid haddaad istaagi karta waad istaagi haddaadan istaagi karin oy ku dhibaysa ama aada wareereysana fadhigaad ku tukan haddaadan awoodinna jiif baad ku tukan oo xadiidka cimraan ibnu xusein baad noqon marka waxaynu leenahay salaadda waa inuu qofku asalka taagni ku tukadaa masaladaa waxaa kala duwan haddaba faradka iyo sunnada faradku waa sidaa aan sheegnay sunnada sow ma aha fadhi waad isaga tukan kartaa adigoo awooda taagni laakiin ajirku waa haaf haaf boqolkiiba konton baad waaya ajirkii salaatu اlqaa'imi afdalu min nisfi salaatu اlqaacidi calaa nisfi ajri اlqaa'imi ninka taagan ajirkiisa nuskii baad leedahay adoo taagni ku tukan kara haddaa fadhi ku tukato saa darteed waxaynu leenahay taagnida ha lagu dadaalo adoo taagnida awooda oon balaayo qabin baad salaadii faralka ahayd fadhiisato allahu akbar tiri waxba kama jiro waa bilaash wakti baad ku dhumisay adna aasin oo dambaabayaa ta intaa waxaa dheer qodobka kale salaadda waa in qiblada loo jeedsadaa salaadda makaa loo tukadaa meelaan maka ahayn lama ogola saa darteed salaadda markaad tukanayso fawalluu wujuuhakum shatra almasjid alxaraami wey dhinaca masaajidka u tukada dadku marka waa laba qof kacbada arka iyada inuu u jeedsadaa waajib ku ah qofka aan kacbada bidhaanteedii arkin ama maka ha jooga ama meeshan ha jooge
sida ugu dhoweyn badan ee dhinaceeda ah buu ugu tukan calaa kulli xaal kacbadu jihada ay jirto afarta jiho bari iyo galbeed koonfur iyo waqooyi hadba jihada ay kaa jirto jihadaan baad u jeedsan shatrahu jihadaa u jeedsada wey walidaalika nabigu uhi maa bayna almashriqi waalmagribi qibla innaga iyo reer madiine hadalkaa u tahay innagu waqooyi baan u tukannaa madiinana koonfur baa looga soo tukadaa oo madiine marka la joogo kacbadu koonfur bay kaa jirtaa innagana waqooyi bay naga jirtaa labadaa qola bari iyo galbeed inta udhaxaysa wey laakiin qolyahan galbeedka jooga westernka jooga bari usoo tukanaya maa bayna aljanuubi waashamaali wey labadaa un garbaha u kala jeedi oo dhinaca u jeedi allahu akbar dheh qiblada waa inaad qaabishaa hal xaalad waa rukso salaada faradka marka laga hadlo haddii xaalad dagaal lagu jiro de adoo ordaya oo madaxa saa u le rukuucdii iyo sujuudii bay salaadu kaa asixiye dhinacaad u jeedaan mustaqbili اlqiblati wagayrihi mustaqbilihaa buu nabig sal slam amadoo qiblada u jeeda amadoo kasii jeeda tuko salaat lkhawfkaas mata dagaalka iyo gaalada lala dagaalamaya keliya fuqahadeenna waxyaabo badan bay raaciyeen waxay raaciyeen salaat اlkhawf aan dagaal ahayn waxay yidhahdeen adoo tukanaya baa meeshii dab ka qarxay dab baa kacay dabka inaad ka cararto aa ku qasbantahay maxaad samayn salaatulkhawf u bedelay dheheen adoo dabka ka cararaya ama duufaanka biyaha ka cararaya salaadaada sii ishaara tuko orod sidaa ku tukan yidhahdeen markaad waxaa cadow ka cararaysoo dhan inay kuu saamaxayn waxaa laga soo reebayaa salaada sunnada ah ee gaadiidka lagu dul tukanayo wa fii qowlin socodkaadoo lugeynayana la tukanayo markaad salaada xiranayso waad xagga qiblada u jeedsan allaahu akbar baad dhihi kadib waad kala jiirayn adoo sii socdaad tukan samiica madaxa iyo sujuudiya rukuucdana waad ishaari si kale kuma garatide aan kuu soo dhoweeyabe gaari baad wadataa hayweygana waad fuushay salaatuleyl iyo sunnaba sii tuko maxaa dhiba xagga qiblada intaa istaagtay meelood u yarjeesato allahu akbar dheh gaarigaa kala firaysa marka alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin gaariga adoo wada allahu akbar allahu liman xamid allahu akbar waa la ogolyahay waa fainamaa tuwalluu fatama wajh llaahi sunnada weeye laakiin faradka maya shardigaana waa shardiga ah qiblada ha la qaabilo qiblada la qaabilna tii maka ahayd weeye kacbo lasoo raro meel kale la geeyey ma aha intaa waxaynu ku daraynaa salaadaadu waxyaabaha salaada jebiya inaad ka ilaalisa wey oo ama intii aan soo marnay qiblada ha ka jeedsan wax salaada jebiyooo kalena ha samayn salaadda maxaa jebiya hadalkaa jebiya aan maslaxatu salaati ahayn jahlina aan qofka noogu cudur daarin haddaad iskala sheekaysato qofka garabkaaga waagi hore way ahaan jirtay oo islaamka awalkiisii intayna waquumuu lilaahi qaanitiina soo degin markaad salaada soo gasho waxaad dhihi jirto rebel imise ragcadood baa la tukaday intaasaa la maraya allahu akbar bareerka iyo ilmihii ka warran seeyihin waa fiican yihin waa la sheekaysan jiray waagii dambe laakiin waa la mamnuucay waxaa kaloo kamida marka innaga telefoonnaa dhib inugu haya marka xajibullah wuxuu yidhi ragcaddii u dambaysaan ku jiraa igu soo celi buui telefoonka ama salaad baan ku jiraa igu soo celi salaadda waxba kama jira waa kaa burti baalkan telefoonkaa hadalku waa jebiyaa salaadda mararka qaarkood laakiin hadalku hadduusa qofku wareer uga yimaaday isagoon is ogeyn insha allahu salaada ka jebin maayo waxaa kaloo salaada jebiya cuntada iyo cabitaanka ninkii salaada ku jiray hadduu cunto iska bilaabo nin dalabatulcilmiga wuxuu nooga sheekeeyey masaajid baan soo galay buuhi taraawiixii safkaan galay buui imaamkoo faatixadii akrinaya nin agtayda taagan mawajaabka timir kala soo baxay buui wuu iska cunayaa buui salaaddii baa ku jiraa markuu dhamaystaba xabad buu la soo baxaya waa cunayaa waxaan isiri buui ninkan baraaruji garabkaan ku dhuftay buui wuu iska waday garabkaan jag ka siiyey buui waa iska waday jag baan ka siiyey buui wuxuu u qaatay buu le inaan wax lehay wax iga sii
intuu soo bixiyey wuu ii soo laacay bui anigina markata salaad dhexdeed lagu qadaynayo lagu cashaynayo ama lagu shaahaynayo lama ogola salaada dhar dhexdeeda socod lama ogolo iyo warwareeg bootin dhisadna lama ogola calaa kulli xaal salaada wixii jebinayay oo dhan cumuuman inaad ka ilaalisood mubtilaatu salaad barata weeye hadda kama gaaro intaa kadib salaada axkaamteeda baan dareerin kadibna dib baan ugu soo laaban dib ugu soo laabadkaas halka la isu fadhiyo waay salaada axkaamteedu allahu akbar bay ka bilaabataa waxaa laga yaabaa dee dareerintaas baan rabaa bal inaan idin tuso sida la leeyahay salaadda markaad istaagto adoo taagan oo cawradaadii asturay waktigiina soo galay qibladana u jeeda tahaaradeediina qaba salaada allahu akbar baad dhihi usallii waxba kama jiro mid waa itifaaq usaliida inay bidco tahay waa la isku raacsan yahay laakiin bidco fiican ma tahay iyo mise ma aha baa la isku haystaa inaan nabiguna samayn alayh salatu asalaam salaf iyo saxaabana aan laga aqoonin dhammaan fuqahadeenna way isku raacsan yihin xataa kuwa qaba ha la sameeyo inta ka dambaysay qolaa tiri maadaama qalbigii hala niyoodo la yihi allahu saliidu qalbigii wixii ku jira bay xoogeynaysaa shaaficiyada fuqahadeenna weeye mutaakhiriinta qaar mutaakhiriintii shaaficiyadaana waxay dhaheen waa bidco aan waxba ka jirin wama shaaficiyaa tiri saa ha shaaficiyaa tiri oo xaggay ku qoran tahay minhaajka sharxiisay ku qoran tahay oo waa sharaxee muqni lmuxtaaj oo khatiib sharbini leeyahay wey oo ninka yihi wa-ayo waa shihaabudiin aladraci markuu mas'alada watalafudu bihaa uu ka hadlayo sharaxa muqniga fiiri qaala aladraciyu bal hiya bidcatun laa asla lahaa sal iyo raatoona mari wey shihaabudiin aladraci baa iskale fuqahadii shaaficiyada ka mida haddaba ninkii dhahaa bidco weeyaa la yihi maxaa loo yihi ashaaficiyaa tiri dheh annaga shaaficiyaa nahay qowlka adraci iyo raggiisaana saxa fuqahada ladii horena ma qabaan gadaalaa laga keenay wixii gadaal laga keenay yeeli mayna dheh allahu akbar bay ka bilaatay xakinta kaaga daran usalli yaad u warbixinaysaa waaye riboodaad gudbinaysaa usalli ma taqaanaa macnaheed horta waxaa tukanaya adigu waad isogtay waxaad tukanaysa niyadiina waa ku jirtaa rabbigaana waa hortaagan tahay rabbigaana quluubta iyo wixii ku jiriy waxa ku jiri doona ogyahay waxaan tukanayaa salaad duhura oo waajiba oo 4 ragcadooda oo caddo waktigeedii joogta oo weliba ma'muumahay ilaahay dartiina waan u tukanayaa nin ribood dhiibayaa tahay maxaa baahida keenaysa ribood inaad dhiibto adna waad og tahay rabbina qalbigaaga waa og yahay looma baahna wey warka murtidiisa sheekh ismaan sheekha iyagii minhaajka akhrihi jirayna waa idiin sheegayo salaaddu allahu akbar bay ka bilaabataa baan hore idiin soo idhi salaadda allahu akbar baad ka bilaabi allahu akbar markaad leedahay gacmaha kor baad u qaadi gacmaha markaad u qaadaysa kor dhowrka tilmaamood ee soo socda u fiirso gacmaha farahoodu way toosnaan way taagnaan lama godo lamana laabo kor baa loo taagaa horeyna looma jeediyo faraha kor baa loo taagaa faraha marka kor loo taagayo lama kala qaado saa lama faraajiyo la iskumana dhajiyo sidooda dabiiciga ah baa loo daayaa sidoo dabiicigaa markaad u dayso korna ay u taagan yihiin ama labada garab baa lala simaa ama wax yar intii kor loo qaado baa dhagaha qaybtoodan furuucu uduneehi intaa hoose ee carjawda ah baa lala simaa inay gacmahaagu garbaha la sinaadaan iyo inay dhagaha qaybtoodan hoose ee lalmata la sinaadaan labadaa meelood midkaad rabtaad geyn kartaa garbaha markay la sinmayaan ama kuwan la sinmayaan calaa xaggeed u jeedin wax xadiiثoo marfuuc oo daliila ma laha dhanka loo jeedin laakiin ahar ibnu cumar baa jiro
كأصحي وابن سعد في طبقاته كورينا يو على علها حق قبلة أتشيدي بوليه لكن حديث مرها أثر كاسا سجرة ما كانت قعمها قربها الله سمته أما دقاها نداد عوض الله سميسو دقاها تاب الله قمدهن قربها تابسين الله قمدهن قعمها قدال جين الله قمدهن ماذا حق بصنا الله قمدهن قعمها مركز هلكا كسو عليسو الله أكبر ده بالويري الله أكبر تده لويري انت تسوع عليسو لاب تصار بالويري لكن وحتور لقوم دهن وانت تصاق قعمها وطورته إنها تسوع عليسو لقوم دهن لولا قعمود مربع لولا قاضاي كلا دنبيسين لما دهن سيدي أديكو وحتور يانا صاي صدى وماري لقوم دهن يعني انت الماما انت كبضانه قعمها سيئاد أي كوقف ذاته إنه انت ودي آدو قعمها هو إلا المدان مركا قعمها كرو قاضي يسو قعنتو حبين بإلاده هدير للعبة إيضا يسحرته إيضا يسعليسه مركا قعنت هذا اللابتو إيضا يسحريسه قعنت هذا كرو قادم انت هورا كلية صولاب هلك يسكو حرتكو تشوشي قرب كاقيب إلا سمانته كقعنت اللاسو قرب كإلا سمانته أظن قعنت كرو قادم مركا لقاها النقطانة هلك نبات كرو وحيرو قادم كانت كر wax yar u qaadi dhagtaada say kula sinaan lahayd iga hadla islaam ee ka nin balba dhagtiisa kulina diraa bi thuluthi way waxa laga rabaa inaad ku dadaasho dhagaha marka la sinto Allahu akbar baadi gacmuhu way horeyn karaan oo iyagoo taagan Allahu akbar tawaadii kartaa wayna dambayn karaan Allahu akbar marka tiraada kadib kor waa u soo qaadi kartaa wayna wada socon karaan isku mar waad ka dhigi kartaa saddex waa lagu ogoliyay marka Allahu akbar tiraahdo waxaan niyeysan tahay salaada tukanaysa waxay tahay adoo maqan oo suuqa laba ku dhufale Allahu akbarna iska tiraahdo oo ogeyn goora tiriba looma baahna marka waxaynu leenahay Allahu akbarta markii aad tiraahdo labada gacmood waad isa saari midigta koreyn bidixna way hooseyn markaad isa saaraysana laba qaab labadaba waa lagu ogol yahay wixii ka soo haray oo dhanna waa qalad waxa lagu ogol yahay labada gacmood inaad inta isa saarto waa lagu ogol yahay oo kafaynka aad isa saarto waa la ogol yahay inaad horay u durjiso ilaa dhudhunka gaarsiisana waa la ogol yahay labada jeerba inaad dul saarto iyo inaad qabato waa la ogol yahay adigu ama qabo ama dul saar inta inaad gaarsiiso iyo ilaa hore inaad gaarsiisaana fadli badan laakiin maxaa khalada halka inaad qabsataa khalada Allahu akbar sida waa khalad faraha inaad isa saartana waa khalad Allahu akbar ama sidan tiraahdo ama sidan inay faraha mas'aladu noqotay isa saarkeeduna khalad weyn gacmihi xageed saari waxa ugu dhow wax aad u cadon war iyo hadal ka imanaynin ma hayne laabta ugu dhow ijtihaadaadka culimada fuqahaada kalena waa jiraano xanafiyadu halka gumeelka ay dhaheen waxay dhaheen balaayada dadka fasaadisay oo dhan meeshaas ay ka timaadaa meesha ma u jeedaan alla bari weeye ilaahay inuu xifdiye halka baasha loo daayay dhaheen rag baa kitaab ka qoray درهم السرة في وضع اليدين تحت السرة كتاب يقرأن أي دلوا الراديين قال شافعيان وحدا مايا بني آدم كبهل كان وضنها لقى حكمه باشا من عاير بدح انت الله بديو وضنها هلا صار إله ويحي في يده اللي جيده هل كان أبا أفيا فرج لقى حكمه لكن انت وقلت له سنة النبي عليه السلام وحد ونوركد بإيمانين ونسي حديث اللي اسكوهين ما قرانا يعني laakiin waxa uu dhow marka la isku jaabaya la isku ururiyo laabta in la saaro way qisada Waa'il ibn Hujr laga warinayo gacanta midig koreysi tabidixna hooseysi halka laabta ana saar ama kor saar ama isku qabo ama qaybtan kafaynka isa saar ama ilaa dhudhunka gaarsi
intaa markaad samaysa kadib allahu akbartii waa xirantay salaadii taxriimuha atakbiiru waxay ku xidhantaa allahu akbar wixii kuu bannaanaaya haasaawiya hadal iyo cuntaha waa kaa xaaraantinimoobay ilaa assalaamu calaykum aad noqotona wixii kaaga xaaraantinimay allahu akbar xalaal kuu noqon maayo waxaa imanaya wixii la aqrin lahaa ducadii istiftaaxaad akrin noocyo badan baa soo arooraye hadba kii kuu sahlanaada talena waan kugu dariya haddaad ma'muum tahood imaam la tukanayso kuwa gaagaaban akri yaan lagaa hor rukuucin imaamyadan qaar baad moodaa sbiirkay ku socdaan haywey inuu saaran yahay si adoon faatixadiiba gaarin aan lagaaga rukuucin kuwa gaagaaban doono haddaadan imaamkaagu imaam salaada dheeraynaya aadan ku ogeyn ducooyinkaas way soo arooreen wayna fara badan yihiin qayb gaagaaban iyo qayb dheer dheerba waxbaan kaaga sheegi laakiin markaan camaliga u daadegno baan markii ninkii uu allahu akbar yidhahda baan ku dul akhriyi doonaa si rukuucdana aan ugu dul akhriyo adkaarta istiftaaxa markaad akhrido kadib shaydaankaad iska naari kadibna faatixadaad akhriyi bisinkaadna faatixada ka bilaabi faatixada markaad dhammayso de faatixadii sharciga ahayd baa la rabaa qur-aanka inaad akrido dadka qaarkiiba haddii faatixada hadda akriya la is yidhaahdo halkaa salaadaada inayna u asixin faatixa darteed baa laga yaabaa nin baa waana tukiyey markaasuu wuxuu yidhi ihdina asiraada almustaqiim masaajid buu na tukanaya nin sheekha wuxuu yidhi kan weligii salaad kama asixin dha carabi kuma jirta sooma ihdina siraada waxaase igu yaab badnayd maalinkan madraso tegey in kitaab tajwiida nin weydiiyey ee uu yidhi hal nuskaan hayaayoon ardada u dhigo markaasaa waxaan idhi maasha allah ninkan aad ka barata tajwiidka markaasa waxaan ku tamaniyey maalinun bal salaada inuu na tukiyo ilahay wuxuu qadaray subaxii dambe baa imaamkii la waayey isagaa sheekh gal sheekh gal baa la yidhi meeshii baa la geliyey laytahu maa dakal ihdina asiraada almustaqiim صراط الذين أنعمت عليهم غير المقلوب عليهم ولا الضالين كصحيح كان علمه تجويد كبراي وسيدي ألا يرون اسكده وضل فرعون قومه وما هدى ما دوالهم كانوا تجويد معلن ويه فاتحنا وحنو قلت هذا وعناد اسكصح هذا أخرس كذا وعناد سيدي إلهي أسود شيء قرآن كي أقرده lixdan baan jiraa konton baan jiraa 30 sano 40 baan tukanaya faatixana ma akhriya aqaan waa khatar bakhaaristu xuruufta waa inaad barataa waa inaad quraanka ilaahay akhridaa faatixadii oo sidii la rabay waa qasab wixii ka dambeeya waa sunna suurad iyo inaad wax ku darto faatixadii kaliya markaad akhrido ama suurad ku dartay dhamayso rukuucdii baa iman allahu akbar baa la dhihi gacmaha sidii hadday markaad xiranaysay aad u qaaday tabtii baad samayn ama garbahaad la simi ama dhagah kor baad u qaadi waad rukuuci lawyahaad qabsan lawya qabsigii baan tilmaamaynaa marka rukuucda markani waa meelaha khatarta wey saa darteed waxaynu leenahay marka aad rukuucayso labada calaacalood labada lowsaar calaacalahaaga labada lowsaar farahaaga way fidsanaan waadna kala qaadi lowgana waad ku qabsan dhab baad ku siin kaأnnahu qaabid calayhima sidii isagoo labada low qabanaya alaacasha markaad saarto farahoos fidsan baad saa ugu qabsan waxaan uga jeeda waa lowya halkan aan rag saari doonaa in sha allahu tacaala aniga waan ka cabsaday inaan ka dhaco waxoogay naftaan yar jeclaysa rag fudud baan rabaa hadduu dhaca la qaban karo labada calaacalood lowyahaad saari fadac raaxatayka calaa rukbatayka farahaagana markii hore waxaan nidhi la iskuna dhajin maayo marka kor loo qaadayo mar kastaba saana la dhihi maayo caadi bay ahaan
marka rukuucda la joogo waa la kala qaadi marka sujuudda la joogana waa la isku dhajin saddexda xaalay faruhu noqdaan faraha waad kala qaadi calaa cashaad saari saasaad ugu qaban taa waa gacmaha iyo lawyuhu say isu qabanayaan gacmahaagan labada dhinac waad ka durkin haddii aadan dabcan saf ciriiriya ku jirin wey haddaad saf ku jirto dadka inaad kadh ka siiso dad dhibta lama ogola laakiin markaad waasac haysato labada dhinac gacmaha waad ka durkin taana waa midda labaad ta saddexaad dhabarkaaga wey dhabarka waa toosin dhabarka ilaahay abuurka dadka ma simin oo de marka horeba dhabarka lama wada sinna laakiin inta ugu badan ubaad samayn dhabarkaaga waxaa la rabaan idiin sheegi marka hadda saa u taagan tahay si toos aad u istaagto sida ay madaxaaga iyo dhabarkaagu isku yihiin baa la rabaa markaad rukuucdana inay noqdaan see la doonaya saa wey shaatigaagu hadduu hayay halkaas waa inaad madaxa halkii ku cabirto oo shaatiga halkiisii u yimaadaan markaad rukuucda dhabarka waad simi markaad lawyaha qabsato dee dadku isku mid maahe ama lawyaha kuusoo taagnaadaan ama gadaal u riix oo toosi intaan arkay waxaa ugu sahlan lawyaha iyo lugaha inaad toosiso aynan iskugu soo godmin hadday soo godmaan badana waxbaa isdaamara markaad lawyaha qabsato dhabarka waa toosin si haddii koob la saaro una waxu noqonaynin dhabarka waa toosin madaxa sow ma aha kor ha u taagin sidii cali dhuruq hoosna ha u laalaadin sidii aw dameer dameeruhu markay socdaan madaxoodu u fooraraa ruugu markuu socdana madax iyo dayadu kor bay u taagan labadaa midna ha samayn madaxa la sin dhabarkaaga iyo madaxaagu waa inay isku toosnaadaan oo sida caadi markaa u taagantahay isugu toosan yihiin waa inay isugu toosnaadaan waxaad u baahan tahay intaad rukuucdo dhabarka lagaa riixo dhinac lagaa soo riixo in lagu toosiyo waad u baahanaysaa rukuucda markaa saa u rukuucdo adkaarteedaad akriyi adkaartii baad akriyi adkaarta hadhow baan ku dul akriyi doonaa qaybta dambaysa inay igu laba goor dheeraanin marka adkaartii akrido rukuucdaa waa inaad ku xasishaa oo aad kala saartaa soo socodkaagii iyo sii socodkaaga dambe laakiin rukuucdu hadday noqoto meel aan laba gaarin oo aad tiraahdo allahu akbar samic allahu liman xamid haddaad tirahdo salaadda waxba kama jiro qaar ba si u sii socdayba waa soo laba goor noqday waa rukuucda xataa yaطma'ina raakican ilaa uu rukuucda ku xasila qofku baa la doonayaa salaadan laga cararayo kadibna banaanka la taagtaagnaanayo xal maaha macno maaha markii aad rukuucda ka soo toosayso cumuuman haddaad keligaa tahay ama aada imaam tahay samica allahu liman xamidah baad dhihi gacmahana sidii baad u soo qaadi ama garbaha ama dhagaha waa sidii gacmuhu markaad xidhanaysay markaad rukuucaysay iyo markaad ka soo toosaysay gacmuhu iskumsi baa loo qaadaya markaad soo istaagto adkaarteedaad akriyi dib baan ka akriyi doonaa laakiin waa inaad iyadana ku xasisho oo sii socodkaagii iyo soo socodkaaga sii socodka dambe iyo soo toositaankaaga waa in la kala gartaa nabiguna arrinta aad buu uga digay mararka qaarkood suu u taagan yahay bay saxaabadu anas yeeleen xataa qulnaa qad nasiya wuuba halmaamisho inuu rukuucdii ka soo toosoo sujuud sugaysay dhihi jireen laakiin haddaad rukuucdii ka soo toosto oo tiraahdo samica allahu liman xamida sii sujuudaba qaar waxaad arkaysaa gacmihiiba lowyaha kama qaadin saad uu toosayaba allahu akbar waa sii socdaa taa salaad maaha ilaahay ma aqbalo طمأنينة lagaa rabo waa arkaanta salaada markaad xasisho adkaarteedana aad aqrido markaa kadib sujuud weeye allahu akbar waa sujuuday gacmaha ka bilow lowyaha ka bilaabi oo nabiga wuxuu yidhi walyadac yadayhi qabla rukbatayhi gacmaha horreysi dhag kadib lowyaha dhigo markana dhowr arrimood baad u baahantahay inaad saxdo marka haddii aad sujuuddo gacmaha faraha waa inaad fidisaa kow waa inaad qiblada u jeedisaa waa laba oo saa iyo inaad u jeedisaa ma aha waa inaad faraha isku dhajisaa saa darteed u fiiriso
marka rukuucda waa la kala qaadi sujuudana waa la isku dhejin rafcul yadaynkana wax labadaa u dhaxeeyay ahaan saddexda xaaladood weeye faruhu waxay maraan farihii markaad toosiso iskuna dhajiso qibladana u jeediso dhulkaa dhigi laba meelood baad dhigi kartaa marka waa sidii kor u qaadkii bay shabahdaaye labada garab hoostooda inaad dhigto iyo labada dhagood hareerahooda wejiga labadiisa dhinaca inaad dhigto labadaba waa ku furanta waa meeshaad dhigi lahayd gacmaha ama labada gacmood dhexdooda ku sujuud oo wejigu halkaa bartankooda ha ku dhaco ama gacmaha dib u soo yar celiyo labadaadan garab halka dhulka kaga aadan dhig intaa markaad samayso gacantaada dhudhunkaa dhulka ka ilaali walaa yabsut diraacayhi basta alkalbi sida aygu lugaha u dhigto waxyaabahaan lowga xubinta lahayn say u wada fidsadaan ha u fidsan dhudhumadan dhulka ka ilaali kow calooshaada bawdyahaaga ka ilaali waa laba oo caloosha bawdyaha inaad ku dhejisa lama ogolee kor uga qaada rag iyo dumarkaa dooni ahow tafriiqa shaaficiyadu daciif aan daliil lahayn wey labada gacmoodna dhinacyada haddii aad meel waasaca haysato gacmaha iska qaad ilaa kilkilahaagu muuqdaan calooshaadii kor baad u qaaday dee hadday kuu qaadmayso hadday kuu qaadmayso wey qofkayna u qaadmayno waa imtixaane allah fududeeyo caloosha kor u qaad gacmahanna dhulka kor uga qaad dhinacyadana ka foge ilmaha yar yarkee waxaaraha iyo aragaydaha ama baraarkaa hadduu rabana hoostaada caloosha ha maro hadduu rabana gacantaada hoos maro waa in gacantaadaas iyo dhinacaaga dhexdooda ilmuhu ka dusi karo waa in calooshaada iyo dhulka dhexdooda iyo bawdyahaaga inta udhaxaysana ilmahaasi ka hoos dusi kara yararkee waxaaraha wey ilmaha yararkee ariga waa inu ka hoos dusi karaa saasaa lagaa doonayaa intaa waa qaarkii hore wey gadaal qaarka dambe ima lugahaagi luguhu waa inaad ama faraha dhulka ku istaajisaa si toosa waxaa ka sii fiican intaad dhulka ku yar nabto inaad faraha xagga qiblada u yar jeediso haddaad faraha atraafta saartana dhib ma laha haddaad intaad dhulka ku yar nabto xagga qiblada u jeedisana ka sii fiican haddaba lugahaagii waa sidaas madaxa markaad saarto marka say caloosha kor ugu kacdo waa inaad horay miisaankaaga saarto miisaankaaga waa inaad xagga madaxa u badiso laakiin inaad gadaal intaad isu nabto madaxa dhagka saa madaxa saa uga siisa adoo gadaal isu nabaya lama ogola markaad sujuudaysa intaa keliya ma aha wejiga iyo sankaba waa inaad dhulka saartaa sanka iyo wejiga waa inaad dhulka saartaa inta markaad samayso adkaartii baad akriyi طumaaniinadii kuxasilkiina waa qasab haddaad saasaa u saarta saa ula soo boodo sidii shimbir biyo cabaysa salaadaada waxa kama jiro markaad dhammaysato allahu akbar baad soo dhihi oo waad fadhiisan fadhiga labaa kuu furan inaad labada lugood taagtood cirbahooda ku fadhiisato waa la ogolyahay labada lugood cirbahooda kor inaad ku fadhiisato oo isdheerayso waxaa kaloo la ogol yahay inaad lugta midigna ay kuu taagnaato tabiixna aad ku fadhiisato oo iftiraash la yidhaahdo kana iqcaa baa la yidhahdaa kana iftiraash baa la yidhahdaa labadaa waa lagu ogol yahay kow gacmahaagana lowyahaagaad saari طumaaniinadii inaad ku xasisho iyadana waa qasab adkaarteediina waad akriyi marka adkaarteedii dhammaysato sujuuddii labaad baad ku celin waa sidii hore oo kaleeto waad ka soo noqonoo allahu akbar markaad soo tiraahdaa waxaa fiican inaad hakato jalsatulistiraaxa la yidhahdaa oodan horay sidii fallaadh iyo warankii aadan ugu bixin xadiid kale kaannahu sahmu sida fallaadhaha loo baxay tabaraani iyo wariyeen waxba kama jiro nabigu waa soo fadhiisan jiray markaa kadib buu kici jiray markaad kacayso hadyiga nabigu alay salaam gacmaha cusko in lawyaha la cuskada maaha in gacmaha dhulka aad ku cuskata wey
kaana yactamidu cala alardi dhulkuu cuskan jiray gacmaha dhulka ku cuskoo sidaa u kac markaa istaagto allahu akbar baad dhihi sii socodka baad ku takbiirsan gacmihii sidii baad isu saari faatixadii sidii baad u akriya markaa labaad istiftaax iyo wajahtu wejhi ma leh faatixadaad akri sidii baad usoo rukuuci sidii baad usoo sujuudi intaa waad soo martaye ataxiyaadkaad iman ataxiyaadka markaad timaado labada gacmood labada low baad saari amaa ta bidixda ah laba khiyaar baa furan inaad faraha fidiso lowgana kor saarto way gacmuhu fidsanaadaan iyo hore intaa u durkiso inaad lowga sidii wax ku qabsanaya ka dhigto labadaa wejba waa kuu furan yihiin tan midigtaasow ma aha saddexdan waad laabi tanna way taagnaan suulka see la yeeli ama isagoo fidsan baad farta dhexe iska saari ama wareeg baad ka dhigi xalaqada isaga iyo farta dhexe labadaaba waa kuu furan tahay inaad wareeg ka dhigto oo sidii eber ama zero ama goobada ka dhigto iyo inaad iskaga soo fidsan iska saarto labada wejba waa lagu ogolyahay suulka tan ha taagnaato saddexdaana hala laabo waad ku ataxiyaadsanaysaa ataxiyaadku kii hore hadduu yahay salaaddu waa laba qaybood salaad hal ataxiyaad leh mise salaad laba ataxiyaad leh salaaddu hadday laba ataxiyaad leedahay sunniya faradkay dooni ha noqotee ataxiyaadka hore lugta midigtaana waad istaajin lugta bidixdaana waad ku fadhiisan saasaa fiican ataxiyaadka dambena lugta bidixdaa xaggaasaad u bixin tawaruga kan la yidhaahdo weeye ama sintaad ku fadhiisan tawarug warigu waa sinta ku fadhiiso ama lugta ku fadhiiso iftiraasha lugtada goglo wey salaadda hal ataxiyaad hadday leedahay labadooda isku mid wey kaad samaysaba haddaad lugta ku fadhiisato iyo haddaad dhinac u bixisaba isku mid weeye waxba isma dhaamaan midnana daliil khaasa ma laha labada qolabasa markaad la joogto midkaad la joogto baad moodaysaa daliil cad inuu wato hal xadiid abi xumayd isaacidi ah oo labadaa ka hadlay buu midba jumlo kuu soo qaadan mid qaybta hore kuu soo qaadana waidaa jalasa fi rakcatayni iftarasha buu ku dhihi ka kalena wuxuu kuu soo qaadan waidaa kaana fii aakhiri salaatihi tawaraka kanaaba nas ku abuu mid walba ku dhihi laakiin asalka xadiidku salaad laba ataxiyaad le buu ka hadlayay marka horaan raacinaa waa ataxiyaad kama horeeyo mise ka dambaan raacinaa assalaamu calaykum baa ku xigtana masala ijtihaadiya wey kaad samaysaba wax daliiloo kala fadilaya garan maayo intaad ataxiyaadsanayso fartu way kuu ishaari tawxiid bayna tilmaami farta ma dhaqdhaqaajinayaa xadiidku ma asaxay bay ku xihan tahay yuxarikuhaana xadiid la wariyey wey laa yuxarikuhaana xadiid la wariyey wey yushiiru bihaa uu ku tilmaamayeyna waa xadiid inteeda badan wey culimmadu saddex bay u qaybsameen marka qolo waxay ku yidhaahdeen yushiiru bihaa keliya asaxday yuxarikuhaa laa yuxarikuhaa waxba kama jiro halkaa qolaa martayoo dhaqdhaqaaq warkii ma jiro qolona waxay yidhaahdeen way wada asaxeen yuxarikuhaa iyo laa yuxarikuhaa labadaba way asaxeen xadiidka cabdillahi bni zubayr iyo xadiidkii caasim ibnu kariimin can abihi can jaddi intaa way asaxeen bay yihahdeen oo maxaa la samayn yuxarikuhaa waxaa lagu jamcin bay yidhaahdeen waa sida bayhaqi iyo rag lamida markii shahaadatu tawxiidka la soo gaaro baa la dhaqaajin yuxarikuhaa taasaa looga jeedaa laa yuxarikuhaana inta ka dambaysa ma dhaqaajinaya wey qolana yuxarikuhaa keliyay saxiixiyeeno laa yuxarikuhaa ma asixin bay dhaheeno farta hala dhaqdhaqaajiyay yidhahdeen see loo dhaqdhaqaajin baa timid daliil gaara ma laha haddaad maaliki tahayna dee farta saasaad u wareejin saasay u wareejinayaan maalikiyadu ama midig iyo bidix saasay u wareejiyaan laakiin intooda badan qolana adigu haddaad tahayna innaga modelka hadda socda sidaa keliya wey sidan keliya waxa keenay ma taqaanaan fuqahadeena shaaficiyada waxay yidhaahdaan farta in la dhaqdhaqaajiya waa karaahiyo hadduu kafku la dhaqdhaqaaqana batalat salaatu marka waxaan rabnaa inaan dhaqdhaqaajintii ku dhaqanno ixtiraazkii batalat salaatuhun aan ka fogaano see loo jamcin karaa
sidaa haddaan nidhaanay dee kafka ula dhaqdhaqaaqi salaadaada inay asaxday iyo in kalaa muran geli marka aayarsan dhaqdhaqaajin un baa lagu yidhi sidan isaga dhaqdhaqaaji calaa kulli xaal xad go-an ma laha iyo qaab ataxiyaadkii hore iyo kii dambe kii hore markaad dhammaysato id ragcadda saddexaad u istaagaysa salaaddu hadday laba leedahay gacmahaad kor u qaadi markaad istaagto kadib markaad istaagto kadib fadhigaa kor loogu qaadi wahmi weeye waxba kama jiro waa wahmi sheekh naasir ka dhacay iyo dadka oo wahmi kale kusii daray wey laba la isku daray wey dadkii oo ka badba waxuusan dhihin yiri iyo isagoo wahmiyey wey isagu wuu qiray haalibka axaadiistu marka la istaaga kadib inay tahay waxaadna ka garan kartaan isagoo fadhigu kor u qaadi wuxuu ku yihi axyaanan marmar haddii marmar la yidhi intii badnayd maxay tahay bacda alqiyaami wey wa kaana idaa qaama hadduu istaago araada alqiyaama ma soo aroorin ibnu cumar oo dadka saa wariyey ka mida waxaa ka sugan inuu leeyahay wa kaana laa yarfacu yadayhi fii shayin min salaatihi huwa jaalis nabigu weligii isagoo fadhiya gacmo kor uma qaadin tan inuu kor u qaadayna waa ka warinayo waa arkay buu isugee marka uu taagnaa wey saa darteed inta axaadiistaasuu ishaarayaa sheekh naasir markuu kule axyaanan ku leeyahay inta badan taagni baa kor loogu qaadaa taa maynaan ku baraaruginoo daa'iman fadhi baa kor loogu qaadaya sheekhu ma dhihin axyaanan marmar buu yidhi inta badan adoo taagan qaad marmartaa daliil ma laha wahmi sheekha ka dhacay wey sifat salaadka xataa asalkiisii markaad ugu noqotay meeluu kaga hadlay wax daliila ma laha waxa la hubay la isku qirsan yahay markaa istaagta kadib gacmaha sidii kor ugu qaado waa ataxiyaadsateen ataxiyaadkii baad aqrideen assalaamu calaykum iyo salligii nabi sal assalaamu calaykum midig in la dhaho ilaa dad kaa dambeeya dhalankaaga arkaanna way soo aroortay in laba laga dhigana waa soo aroorto assalaamu calaykum iyo assalaamu calaykum la yidhaahdo waxaa kaloo soo aroortay hal mid in lagu gaabsado oo hore inta loo yidhahdo assalaamu calaykum kadib wax yar saa loo janjeersado oon badnayn labada waa la samayn karaa halka marka la gaara dee wataxliil wa tasliim waan maraynaa laba masale aan kugu baraarujiyo oo kale marka waad rukuucday waadna soo toostay gacmaha seedhihi wax daliil ah ma laha ha lagu celiyana daliil gaara ma laha ha la lalmiyana daliil gaara ma laha labada qolo waxay daliishadeen qolo waxay dhaheen waa lagu celin maxaa u daliila haddii la sii daynayo daliil baa sheegi lahaa haddii la sii daayo ay tahay daliil baa la heli lahaa qolo waxay dhaheen may lagu celin maayo waa la sii dayn maxaa u daliila haddii lagu celinayo waa la sheegi lahaa marka nuxurkiisu intaa way daliilkooda hadalka imaamu axmed yiri baa iigula dhow in shaaa qabada wa in shaaa arsala hadduu doonana wuu ku celin hadduu doonana wuu iska dayn wuu sii daysan laakiin rag baa isku feedha jabayo bugti iskaga geliyey aduu aad ha isugu xiijinin masalada labaad waan sujuuday labada cirbood ma isku qabanayaa jawaabtu waa maya ma asixin sheekh naasirna masaladaa wahima xadiidkaasna waa xadiid saxiixeynka ku yaallo hal nin baa ziyaadada cinda taxaawiyi ku daray raasan caqibayhi waa xadiidkii qisadii caaisha habeenkii nabiga ay weyday ee ay daydayday weeye xadiidkaasi cirbihiisoo taagan bay gacanta ku dhifatay wahuwa mansuubataani intaa way riwaayada saxiixada raasan caqibayhi laba nin baa ugu mashhuursan waxa warisay taxaawi iyo ibnu khusayma waa ka shakiyey wuxuu yihi in habata mise in saxa labadaa midkood bi lafdigaa hadduu sugnaado sababtoo ah waxaa lafdigan la keliyoobo ruwaadii iqaadka o dhan oon sheegin nin la yidhaha yaxya bni ayuub alkhaafiqi oo xifdigiisa dacfi ku jiro xadiidkan waa xadiid mashhuur oo iqaadkii wariyeen kaasoo kale fii qaacidati ahli lxadiidi saxiixa lama aqbalo marka raasan caqibayhi ma sugna masaailka sheekh naasir lagu tacqiibiyey bayna ka mid tahay raxmat ullaahi calayh intaa salaadii warkeedii oo gaaban wey anaa raba inaan rag idinkala soo baxo waxaa ii dhiban takbiir laga bilaabo ilaa tasliimta laga gaaro de halkan ragaan saaraan rabaa nin fudud baan rabaa waxaa la yidhi sheekh bashiir iyo culayskooda meesha miyad ay qaadaaba kuwan miisaskan yararkee lafaha yar way la jabiye mayme rag yar baan heli ninkan aan garanayaa ninkan aan soo kicin
إيه أنت تصوف وشاء الله قربه صلاة صلاة ما تكنين صادرت القبلة دور كانوا يدوين قبل عن كل شيء ديننا ترى أنت وحي كدم بيا وأنت قفكي أن هرت أجنين أي هول يكون نقطة qofku markuu salaada xiranayo waxaynu niri gacmaha kor baa loo taagi labada garab la sin ama dhagaha la sin waxa kugu sahlan gacmihii lalmaday siday ahayd u soo celi iyada isxiraysa hadaa kor yar qaadi rabtana sida uu yar qaad gacanta tan soo kacdeego tan kor noqoshadeedu waxba iska ma bedelin faruhu ha taagnaadaan aadna hay isugu dhajin aadna ha u kala qaadi الله أكبر باسال لو يراهدا هيه وإلا داوريسا معلومة فضل marka xiranaysa dheereed baa laga rabaa صح يا ساخره gacmuhu dhagaa way dhaafeen halkan ay la sinmeen okay gacantaada markay saa tahay garabka marka aad la simeysay inta kor ha dhaqaajin intan kaliya sidan way ما يبغاش كتنكره وقادس غير كلي انت كلي علي قربك على سمنت كره ضويه القادنا دغت على سمنت الله اكبر كاتراادو لا غعمد سار sidaas waa banaanta inuu gacanta meel haysato misaad fidis sidana waa loo goliyo kor yar qaad laakiin halka laabta ku aadi hore inaad gaarsiisana waa loo goliyo لكن لبدا inaad qabsato lama ogola استفتاحي بعد قريه مركز ابو حاخي اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي اللهم اغسلني بكورس من خطاياي بالماء والثلج والبرد اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس تاوى لوغليه وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي قل مله حديث قرآن كويتاس إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين انت واكو قابسان كرتا كدب مركا انت اخريده حداد سو غابين ربتنا حديثك عائشه كو سهلا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك انت انا واكو غابسان كرتا كدب واد سو ركوعي فاتحه بعد اقري فاتحه امتحان كذا هذا كما بحكرنا وشي كلي كدن بيد اقريسا حداد كليغا تahay ولا ضالين marka tiraado kor baad u dhii aamin آمين كمان كذا آمين ميم كاشدة لاحم ويا آمين والله ما كان يعرفون هذا الشدة آمين وحنو قصدني وي إنما الفقهاء الشافعية وحقا عن صلاة الكبري وهو كلام الناس وي آمين إله أقبل وي لكن إنك وأكون سبب سوى كرية آمين الله حوي آمين وي كر بعض به هذا الإمام تهينا كر بعض به مأموم هذا محاد سامين ومسألة علماء اسكوهيان ومسائل كأي شافعي هي شافعية وكل عتاقين إمام الشافعي وحوق قواسيد أمك وكقري هوس بعض به آمين ضدك كر واقع ما يمساجك شافعية كر بعض واقع يا قوار الصومالية وحلته كذا ما حنافة مثلا المغرب إمامك مركو ولا الضالين بكل كلي ما كان حدا واقعي آمين كلي وي هذا مركو صابح يقول الهندي حسب سنة ويقبح يقول صلاة رقع هذه السنة ويقبح الصلاة إذا كانوا قال لي يبين ومذاهب ورفضوا كلا قبان صورة دي كده بيسمى الله قريه
وتصور ركوع هذا ربنا كتوس أي ركوع سأل الله ركوع يا يقوم بيمس الله أكبر باليري والله الركوعي قامها ني سدا واكوس حيين فروه كلا تكسيين على عشر لو يكون دنتهي وانا هي واقبتي سيفي عم بوعس كذا اوكي دبركا با wax yar u baahnaa inaan sii tilmaamo dabarku waa yar koreeya halkan hoos u daji dabarka uu sida inuu toosnaada la rabaa weli wax madaxa soo celi kor u celi markay sidoo kale tahay mushkiladu waxay ka qabsataa kan kor qaad okay halka waxaan rabaa koob inaan saaro oo wiil istaago madaxana sidoo qamiiskaagu u hayay timahaaga markaad caadi u istaagtay baa markaa rukuucsan tahay inaan u hayo la rabaa waa taagnidaadii bay rukuucu ku imanaysaa طيب سمع الله لمن حمده markii la toos gacmihii sidii baa kor loogu qaadi halkii baa la geeyay rukuucda inta la rukuucsan yahay maxaa la aqrinayaa subhana rabbiyal azim waad ku celcelin kartaa intii hadba ku salaamaat waxaad ku celcelin kartaa subuhun quduusun rabbul malaa'ikati war ruux waad ku celcelin kartaa subhanaka allahumma اللهم اغفر لي أما سبحانك اللهم ربنا اللهم اغفر لنا واتكو علين كرتا وهكذا ذكري كرتا اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وما استقلت به قدمي لله رب العالمين مدبو آخري كرتا هذه صلاة الليل تهينا سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة والأغرية كرتا انت ما كسوستوسو سمع الله لمن حمده وعده هذا كليغاته هي هذا امامته هذا مأمومته امامكم مركو سمع الله لمن حمده يرادو ادو ربنا ولك الحمد بعده انت وحي كدن بيواد وداغتان ربنا ولك الحمد waa ku deysan kartaa وحوغينا waa ku dari kartaa waxaad ku dari kartaa mil as-samaawaati waxa ugu dheerinta riwaayadka saxiixa aan arkay mil as-samaawaati wa mil al-ardi wa mil ma baynahuma wa mil ma shi'ta min shay'in ba'd ahla ath-thanaa'i wal majd haqqu ma qala al-'abd wa kulluna laka 'abd allahumma la mani'a lima a'tayta wa la mu'ti lima mana'ta wa la yanfa'u dhal jadd minka al-jadd intaas laga rabaa taagnaad ku akhriday ninkii sii socday dhaxda ka noqonayay goorma wax akhri garan maayo kadib waa sujuudi aye sujuuda labada dhinac waa u sii jeesan doontaa marka aad sujuudo horta gacmahaagu faraha waa inaad isku dhajisaan ku yiri wad labada gacmood qibladana u jeedi waa u jeedaan طبعا laba ku furan inaad hore u yar durkiso oo wajiga labadiisa dhinac dhigto waa lagu ogoliyay inaad dib u soo dhigto garabkan hoostiisa ku aadisana waa lagu ogoliyay labada wajba waad samayn kartaa sankiyo wajigu madax dhulka waa inay taabtaan gacmahaagan waa kuwa niri labadan waa inay ka koreeyaan dhulka dhinacyadana waa inay ka baxsan yihiin calooshaaduna waa inay bawdiyahaaga iyo dhulkaba saa uga sareysaa halkan hadaba ilmo yar oo waxara waa mari karaa oo gacanteeda waxa xaggaas ay bixi kartaa laakiin hada caloosha hoos ugu nabto oo bawdiyaha qabatiiso midda kale culayskaagu waa inuu xagga wajiga fuulaa yatahaamalu calayhi ereyga macnihiisa asaasa madaxu culayska saari jiray way dhinaca kale u jeedo dhinaca kale u sujuud lugahaaga aan rabaa inaan tuso dadka sujuudaan joognaa marka la sujuudo sidaa waa sida ugu fiican lugaha laakiin haysa saarin sida caadiga yihiin u daa lugaha farahooda intii lagu yar cadaadiyay qiblada inay u jeedsadaan waa sida ugu fiican waxaa la ogol yahay inaad faraha saa u saarto keliya ku nabin inaad faraha keliya saa u saarto waa la ogol yahay faraha qotomiso
waa inaad saa isku xambaarta gacmahaagana haddii aadan qaarka hore wax ku qabin sida markaa xajka tahay laba goo qabto kilkilahaaga in la arkayo caddiinkooda wey ama caddiin madowgooda marna bayaadu ibtihi baa lagu dhihi man xataa tabduwa cufratuhu cufra waxaa la yidhahdaa meesha timaha lahayd marka laga xiiro madow waa ka muuqanaya salka soo maha taasaa cufro la yidhahdaa sujuudu sidan wey haddaad laakiin waxaa khalad ah inaad sidan tidhaahdaa waa khalad waxaa labaad oo khalad ah adoo sujuudsan inaad sidan tidhahdana waa khalad waad arkaysaan dad saa leh saa isu saaraya baallaha lugaha isu saaranayaa khalada ayib soo fadhiisaada ataxiyaadki waa la rabaa xagga usoo jeedso waxay u keendhima waa ataxiyaadki fadhiiso fadhiiso wixii kale ay dhimaneen hafay idinka ay xusuusin doono markaad ataxiyaadsanayso gacantan sidaana way furan tahay lowga inaad ugu laabto inaad dib u durjisood saa ugu fidisana waa la ogolyahay laakiin halkaa inaad cuskataan meesha ku jirin oo gacanta kodinta u laabata halkaa qabsato lama ogola gacantaada sidan ah qasab maaha inaad dhulka ka qaado sidanaad isaga sii daysanaysaa xaddi mirfaqihi calaa fakidihi bay riwaayaadku leeyihiin xusulkaaga darafkiisuu bawada saari jiray tan labadaa wej baa furan tan faraha waad laabi suulkan laba xaaladood baa lii ogolyahay inaan isaga saa isaga fidiyoon taa kor saara farta dhexe iyo inaan wareega ooda a sameeyo 53 shantiina wataas saddexdiina wataa 350 carabi ah baa meesha ka muuqanaya shantii iyo saddexdii saddexda carabiga saasaa loo qoraa dhinacan aad u akriyi shantana eber ahaan baa loo qoraa halkan aad ka akriyi 53 markay ku leeyihin saawe sii jees haddaba lugaagaan raba inaad tuso marka la taxiyaadsan taxiyaadka iftiraash iyo tawaruk baa jira marka lugta in lagu fadhiisto waa sidan lugtanna wuu ku fadhiyaa tanna saasay u taagan tahay faraheeduna qiblahay u jeedaan salaad oo dhan waad samayn kartaa labada sujuudood dhexdoodana waad samayn kartaa laakiin sida fadliga badan labada sujuudood dhexdoodana saa samee salaadaha labada taxiyaadna taxiyaadkooda horena saa samee salaadahan labada taxiyaad lahayn ee hal taxiyaadna tan iyo ta kale isku mid way hal ragcad bay noqon kartaa watara laba ragcadood bay noqon kartaa farad ama sunna shan ragcadood oo sunno la isku bixiyay noqon kartaa ama sagaal sunno uu yeeri jiray xariista marka qaarkood tawarruk baa furan oo lugtan xagga in loo bixiyo xagga u bixi lugtaas sinta ku fariiso sinta in lagu fariistana waa taxiyaadka salaada ugu dambeeya salaadoo dhan haddaad u fariisata dembi maaha iftiraash iyo tawarugu waa afdal keebaa afdala wey inay labaduba bannaan yihiin oon salaadda wax u dhibaynin muran kama taagna xanafiyadu weligood lugta way ku fadhiistaan salaadoo dhan maalikiyaduna salaadoo dhan lugta xaggay u saaraan tawarug wey salaadoodo dhan xataa labada sujuudood dhexdooda waxaa furan labada sujuudood dhexdooda labada cirbood inaad ku fadhiisato tan kor sida tan oo kale ka dhig aliqcaa baa la yidhahdaa in gadaal gadaal loogu fadhiisto nooc kaloo iqcaa la yidhahdaa jiro xaaraana oon salaada dhexdeeda la ogolayn kan laakiin waa kii xadiidka ibn cabaas ah ee sunnada nabiga ka mid tahay u yihi sala allahu alay ali wasalam ayib caadi u fadhiisa soo jeedo iqcaaga aan la ogolayn waa salka dhulka saar lawyahana kor igu taag lawyaha kor u taag salka dhulka saar lawyahana kor u taag sida ninkaa u fadhiiso salaada saa inaad u fadhiisata lama ogola salaadda in saa u fadhiisata lama ogola saasaan ku ataxiyaadsan haddaad tiraahdo ama addoonyeysataba ataxiyaadkii lama ogola ayib anadoo haddaan fadhi ku tukanayo fadhigii ataxiyaadka iyo fadhigii taagnida ma kala duwan yihiin saa u fadhiiso markaad fadhi may lugaha isdhaafi lugaha sida ninkan markaad salaada fadhi ku tukanayso booskii faatixada la aqrinayey iyo booskii rukuucda ka dambeeyey saas mutarabican baa loo fadhiistaa si labada fadhi ataxiyaadka iyo qiyaamka ay u kala duwanaadaan sinaad faatixada ku aqri lawyahana aad ku rukuuci waad soo toosi
markaa kadib baa sujuudi oo sida atixiyaadka hadaad u fadhiisan karto aad u fadhiisan haddaadan fadhiisan karto lugaa ka xanuunsan tahay iyana ba sidii kuu fudud aad u fadhiisan waxaan rajaynayaa assalaamu calaykum markii la leeyahay baa labada dhinac loo jeedsanaya atixiyaadkiiya waxaa ii dhiman sujuuddii wixii la aqri lahaa maanan soo dhihin baan u malayn sujuudiyo rukuucdu aad bay isugu dhow yihiin subxaan rabbi alcadiim tii subxaan rabbi alaclaa u bedel subuuxun quduusu rabbulmalaa'ikati waruuxina akhri subxaanaka allaahuma kfir lii subxaanaka allahuma bixamdika allahuma kfir liina waad akrii subuuxun quduus subxaana di ljabaruuti walmalakuutina waad akrii laakiin allahuma laka rakactu meeshii ahayd allahuma laka sajadtu baad dhihi allahuma laka sajadtu wa bika aamantu waa isaga mid walaka aslamtuna waa isaga mid meeshii khashaca aad ahayd sajada wajhi baad leedahay marka liladii khalaqahu wa sawarahu washaqa samcahu wa basarahu bixawlihi wa quwatihi fatabaraka xusn khaaliqiin markaa ka soo toosto labada sujuudood dhexdooda waxaad ku celcelin kartaa allahuma kfir lii allahuma kfir lii allahuma kfir lii keliya waad ku gaabsan kartaa fadhiga labada sujuudood udhexeeya allahuma kfir lii allahuma kfir lii keliya ku gaabsan kartaa waxaa kaloo dhihi kartaa halkan hadda imtixaan yaan weydiiyaa ay maxaa la dhihi igu celi allahuma kfir lii warxamnii wajburnii wacaafinii warzuqnii wahdinii aw ayib daahirka riwaayaatku isdaba alfaada way isdaba marmariyaan bacdu riwaayaat sheekh naasir isagoo riwaayad uu doortay waxay ahayd baan u malaynayaa allahuma kfir lii warxamnii wajburnii wahdinii warfacnii wacaafinii warzuqnii saan ahayd baan u malaynaya wacfu canii kuwa ku dhalaa jira calaa kuli xaal markaad taa soo akrida ataxiyaadka isku wada mid weeye dhowr arrin allaa hal arrin bay ku kala duwan yihiin tashahudka ibnu mascuud iyo ibnu cumar iyo ibnu cabaas baa ugu mashhuursan iyaguna wax badan kuma kala duwana iyo kan cumar laga warinayo ataxiyaatu lilaahi waad dhihi kartaa wالصalawaatu wالطayibaatu السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تكديس وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله حق هره حديث كان عباس باكو دريا التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله لله ذو قضاء لمريي يا المباركات هره لغا قدر انت كل دوين حديث كعمر وحكى دوين هي التحيات المباركات الزاكيات الزاكيات وكدر يسقنا midkii aad aqridaba dhib ma leh taxiyaadka markaad dhamaysato salliga nabiga ku xiga sallallahu alayhi wasallam siiqa soo aroorey fara badan taad akhridaba dhib ma laha sida nabigu uu sallay salaada gaar ahaan iyo banaanka waxba kala duwan banaanka sallallahu alayhi wasallam iyo allahumma salli ala muhammad iyo intaas laga ogol yahay salaada laakiin maya waayo nabiga alayhi salaam saxaabadu weydiiyeen oo rasuulka ilaahay waxaana la amray inaan kugu sallino salaada markaan tukanayna saan kugu sallinaa isaga baray marka jidka waa cadeey allahumma riwaayat badan weeye miduna aan ka soo qabto allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallayta ala ibrahima wa ala ali ibrahima innaka hamidum majid wa barik ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama barakta ala ibrahima wa ala ali ibrahima innaka hamidum majid taasa kamida wa ila 7 riwaayo kala duwan baa ku soo aroortay marka salliga akhrido iska ducayso falyadcu bima shaa ducadaada ugu jeceshahay iyo baahidaada iyo ku ducayso
sujuudana intaa markaad akhrido ku ducayso rukuucdana waa ku ducaysan kartaa markaa kadib assalaamu calaykum oo midig iyo bidixa inaad ku gaabsato assalaamu calaykum assalaamu calaykum intaa waa la ogoliyay tan midigta ah iyo tabiixda inaad tiraado assalaamu calaykum waraxmat ullah assalaamu calaykum waraxmat ullahna waa la ogoliyay waxaa saddexaad oo la ogolyahay assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh assalaamu calaykum waraxmat ullah tabiixda wabarakaatuh ma leh wamakfiratu iyadu meel laba kuma jirtaba wamakfiratuhu meel laba kuma jirto waa laba laba marka laga dhigo waxaa la ogol yahay oo kaleeto assalaamu calaykum adoo horay usii jeeday qiblada kadibna aad saa wax yar dhahdo taana waa la ogol yahay saas darteed hal mid bay salaada ku dhammaataa ta kalena sunno wey ta kale qasab maaha intaa markaad dhammayso jaantaafuran wey salaaddii way dhammaatay ducada dambe salaada ka mid maaha adkaarta way fiicanta inaad iska akrisato laakiin salaaddii waan dhammaynay an waxaad ugu ogeyn salaaddaad ugu ogeydeen sooma axkaamteeda salaaddii way dhammaatay intaa wixii ka dambeeya nin iyo hawshii iyo dantii wey ninkii wakti haya ninkaan wakti haynin ninkii fadhiya adkaar akhrisanaya ninka hore isaga kici ninkii qur-aan akhrisanaya ninkaan akhrisanaynin nin iyo hawshaa iyo waktigaa iyo dantaa wey iska soo deg hadda dad ba haddaan imtixaano meesha camera la gelayaayo camera la gelayaayo dadka waxoogay soo kaca inaa idin dhahan rabay marka lakin waan iska cabsaday eeddaan ka cabsaday cumuuman inahaas weeye horta waktigan ba idinku dheeraado 9 iyo 6 daqiiqay maraysaa haddaad su-aalo qabtaanna waan wadayna waan idinka jawaab aniga haddaydaan su-aalo qabinna salaadaynu tukanaynaa بسم الله الرحمن الرحيم